kulan hawleedkan lagu gurfeynayay xeer nidaamyaha siideynta shuruudaysan ee maxaabiista ku jira xabsiyada kala duwan ee dalka oo loo qabtay xubno ka socda ciidanka asluubta bahda garsoorka iyo guud ahaanba bahda cadaaladda waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda hoggaanka sare ee taliska ciidanka asluubta xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka Hargeysa iyo ururada bulshada waxaana soo agaasimtay wasaaradda cadaaladda wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland Mudane Xuseen Axmed Caydiid oo furay kulankan ayaa ka warramay ahmiyadda kulankan ugu fadhiyo bahda garsoorka iyo sugidda helidda cadaaladda maxaabiista xabsiyada ku jira oo lagu qiimeeyo heerka dhaqanka wanaagsan ee maxaabiista waqtiyada xadhigooda waxa uu sheegay wasiirku inay baahi weyn u qabeen bahda garsoorka iyo cadaaladda in la helo xuquuq iyo xeer nidaaminaya maxbuuska xilligiisa xadhiga sida wanaagsan u guta lagu abaal mariyo in waqtiga la xukumay qayb ka mid ah laga saamaxo oo la sii daayo maxbuuska xabsiga laga sii deynaya dhibaato miyuu ula tagi doonaa mujtamaca lagu sii dhaxdeenayo marka hore kiiska uu galay loo haystay muxuu ahaa inta uu xabsiga ku jiray habdhaqankiisu sidoo ahaa program uu baahan yahay dabadeed oo sii qaato qofkaas uu mutaysta inuu siideynta shuruudaysan ku baxo iyo ma mutaysan oo kuma bixi karo ay go'aaminayaan system kale markaa remission system kii jiray marka hore marka 4 meelood uu xabsiga dhamaysto 3 meelood ahaan meesha hadhay uu ku bixi jiray abaal marin ahaan loo sii jiray goor ka horeysaba ay tani suurta galaysaa kala bar markuu dhamaysto xabsigiisa مثلا haddii 6 sanadood la xidho qof xabsi dhimista wuxuu yeelan jiray sanadkiiba 3 bilood kan waxa la qiimeeyaa 3 sanadood markuu xidhay هذا ولي السنة دي بركة هرو سوق عيا سوار كميسان حرقة قار باي رقم ممنوعة مركز هرو ولا دادي فيه وأنا ما أنت حيل كوبا يروح قلنا وقف كمرنا قري أبدي لسود دي باي قف كبرعة بدأ هذا يأرجع حسال لسود دي باي قف كفسي taliyaha guud ciidanka asluubta Soomaaliland Sariye Guuta Maxamed Xuseen Faarax Xiirane ayaa si qoto dheer u sharaxay doorka muhiimka ah ee xeerkani uu ka qaadan doono hawlaha shaqo ciidanka asluubta isagoo kula dardaarmay ka qaybgalayaashu inay ka faa'iidaan muddada 3 cisho ee tababarkani uu socdo agaasimaha waaxda xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda Wali Ismaaciil Cabdi ayaa iftiimiyay kulankani ahmiyadda uu u leeyahay bahda garsoorka iyo guud ahaan bulshada kulan hawleedkan ayaa socon doona muddo 3 maalmood waxaana lagu lafaguri doonaa qaabka iyo wada shaqeyneed ee loo marayo xeer nidaamyaha siideynta shuruudaysan ee maxaabiista ku jira xabsiyada dalka